عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام الله سبحانه وتعالى يا ما تسكله وهلكان حفلة قروح البدن عن السوق إيماني سيدو كلا وحا ما تسكله مامولك سوق السلام وحاسدو كلا أن أمات عنايا معلمين تسكسو دوريدي حفلة قروح البدن waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa marti sharaftii oo maamulka wacday oo halkan si qurux badan u soo dhaafisay sidoo kale waxaan si gaar ah aan ugu mahadcelinayaa maamulka iskuulka salaama ustaad sacad oo ah macallinkeyga maamulkeyga iyo maaragtay saaxiibkeyga aan markasta maaragtay xaflad walba oo anigana macadkan ku qabto aan ku casuumo asigana macnaha mar walba aan iga tagin waan u mahadcelinayaa mahadcelin kadib iskuulka salaam waa iskuulada degmada kuwa ugu horumarsan ayuu ku jiraa haddii lambarka koowaad aanan dhihin lambarka labaad ku jira waayo iskuulka salaam waan u jeednaa waxa uu soo saaray arday qurux badan ardayda uu soo saaray waxaa ka mid ah ardayo oo hadeertaan maaragtay jaamacadaha dhigto waxaan u jeeday arday ka mid ah ardayda halkan ka qalin jebisay oo ah Fahad oo ah ardaygii halkan ka qalin jebiyey oo hormuud imtixaan u galay oo maaragtay ka soo baxay meel wanaagsan wuxuu ka qalin jebiyey halkan uu ka qalin jebiyey tan kale waxaan leeyahay waalidiin waxaan ku soo gabagabeynayaa waalidiinta waxaan anaga barbaarinaynaa arday adi soo barbaarisay oo aadaab soo baray waxaan waddo wanaagsan tuseynaa arday adi waddada maaragtay wanaagsan guri ku soo baray aan anagana waddada usii toosinaynaa ardayga hadduu ku xun yahay dhanka guriga uu ka xun yahay kuma toosaayo iskuulka waan aragnaa anaga dhan ardayga waa in laga soo barbaariyaa ama la soo barbaariyaa guriga si maaragtay macalinkiisa u sharfo maamulkiisa u sharfo bulshadana sharaf ugu helo annaga sanadooyin ka hor markaan iskuulka dhiganaynay waxaan ahayn dad wax walba u nugul runtii annagoo waaweyn maaragtay foonfoor anaga garaaci jiray gacanta waa dhiibi jirnay maantaydan laakiin ardayga isku horimaad uu samaynayaa wuxuu ku leeyahay adimaa macnaha saas dhihi karo waxaas waxa waaye macalinka ma ahan maamulka ma ahan guryaha ilmaha guryaha laga soo toosiyo si maaragtay sharaf iyo qurux oo iskuulka ugu dhigto loo tuso tarbiyo wanaagsan wada wanaagsan loo tuso insha Allah waalidiinta dhankaas ayaan leeyahay marka waxaan ku soo gabagabeynayaa ustaad sacad aad iyo aad ugu mahadsan yahay iyo masterka xafadan soo qaban qaabiyay iyo sidoo kale macallimiintii maaragtay garab ku siisay iyo bulshada oo dhan waxaan leeyahay salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh